بسم الله الرحمن الرحيم وأستاذ عبد الفتاح أبو النور إنجنير جيسي waxaan wadnay trainingkii ahaa the right manager manager saxda ah maanta waxaan qaadanaynaa maalintii labaad divine management maxaa raada managementigu maxaa tahay managementigu muxuu yahay isaga managementigu waxa weeye waa hab processkaasoo shayga lagu dhigaayo dan mid dhaca yani shayga in la qabta laga dhigaa see loo qabanaa marka shayga effectively marka lagu leeyahay waxa weeyaan hadafkiyaa la gaarayaa lagu gaaraya and efficiency waxaa la isticmaalayaa costiga ugu yar kharashaadka ugu yar with and through people waxaas oo dhan lagu qabanaya dad ayaa lagu shaqeynaya management waxa weeyaan habku qof aad ku shaqeynaysid qofkaas markaa ku shaqeysid oo shaygu uu qabanayo si sax ah oo dhinac walba ka saxsan effectively marka lagu leeyahay waxa weeyaan doing the right thing in la qabto shayga saxda ah the task that help an organization reach its goal effective waxa weeyaan waa hadafkaaga wixii ku gaarsiin lahaa inaad si sax ah u qabato effective u qabto marka lagu leeyahay waxa weeyaan sidee goalka ah sida hadafku ahaa ayuu u qabtay hadafkii ayuuna gaarsiiyey managementiga waxaa laga rabaa management saxda ah waxaa laga rabaa inuu u qabto shaygu effectively and efficiently asagoo weliba isticmaalayo dad ayuu isticmaalay through people yani managementiga shadiisoo kale waa managementiga waxaa daba kacan employee ayaa daba socda flowers ay daba socdaan management ay daba socdaan Alibaba wuxuu ku leeyahay markaad 20 sano aad gaartid oo kale waxaad u shaqeysaa maxay management fiican oo ku gaarsiinaya hadafkaaga businesska yani flower dabaka management fiican dabaka oo hadafkaaga laakiin ku gaarsiinaya waxba yuu ku siin haduu doono iska dabaka yani hadafkaaga kuugu wadaa ilaa marka management is a process of getting things done waa habka oo shaygu loo qabanayo weliba waxaa loo qabanaa si hadafka loogu gaarayo si lacag yar loo isticmaalo cost yar hadduu ku galo faa'iido badan ayaa yani cost yar ku galay qarashaadka price saarnaysa price markaa gadatid tusaale $20 ayaa shaygan soo saaridiisa gashay waxaad gadaysaa $40 $20 faa'iido ku saar marka wuxuu isticmaalayaa managementiga marka dad ayuu isticmaalaya effectively waxa weeyaan effectiveness in la qabto shayga saxda ah weliba hadafkii la rabay lagu gaaro hadafkii waa la gaaray marka leeyahay si effectiveness loo qabto efficiency waxa waaye doing things right shayga si sax in loo qabto doing things shayga in right loo qabto kana waxa waaye doing the right in si sax ah things shayga loo qabto kana waxa waaye doing things shayga in la qabto right si sax kan waxa waaye marka the efficiency use of such resource as people yani in loo isticmaalo si sax ah dadkii employee money lacagti equipment khaladki waxaasoo dhan soo koob waa resource waxaa raadaan waxa aad adiga haysatid shirkad ahaan waxyaalaha adiga aad haysatid wax kusoo saari rabtid oo ama shayga aad adiga haysatid si sax ah inaad isticmaashid oo kharash badan kaaga bixin ayaa waxaa raadaa efficiency loo sameeya haddii lagu raado isla marka qalbiga soo galo resource and costigs yar in loo isticmaalay soo galo maskaxdaada isla marka management waxa weeyaan ninka si sax ah u isticmaalo dadka waa haysto si sax ah dadku haysto marka leeyahay employee inaad ku tumato lana rabade shaqaalihii ku shaqeynay hadaad ku tumato gabar oo aad tiraahdo kaaliya nina soo shaqaaleysiinaysaa tusaale ahaan markaas waxaad tiri heblo walahi shirkadaan hadaad ka shaqeysid faa'iido badan aad helaysaa lacagtiin $100 aad tiri $100 ayuu shaqeynaysaa tiri dadkana shaqadan oo kala qabtaan waxa siisaa $500 shaqadan oo kale degree ninkan ah qofka oo shaqeeya waxa siisaa $500 nin kala rabtaa inaad soo kireysatid oo kale markaas waxa leedahay heblo maanta hadda shirkadan u shaqeysid waxaad helaysaa faa'iido badan wallahi faa'iido badan helaysaa war faa'iido badan laga marabo inaad ninka ku soo qancisid waxa laga rabaa inaad tiraahdo
hebel shaqadaas waxaa loogu shaqeeyaa intaas ku siinayna noo shaqeey. sida saxda waa sidaas. marka people dadkan ku shaqeynaya waxaa la rabaa inaad xuquuqdooda dhowrtid. haddaad tirahdid kabar nus biyo xataa cid loo ogolaya malaha, biyo xataa looma ogola haddaad tirahdid kabar qof soo qalad maaha. managementigu saxda waxa weeye ninka si u isticmaalo dadka si saxa u isticmaalo, employees lacagta ugu hayso si saxa u isticmaalo, iska bixinin equipmentiga qalabkana si saxa u isticmaalo, shay kasta si sax ayuu u isticmaalo. effectivena waxa weeye hadafkiina waa gaar. hadafkii adigoo gaaraya fiiriya laba shay isku wada. hadafkii shirkadda adigoo gaaraya oo ah profit, to get profit, in macaash la helo, inaad qanacso customerkaaga. hadafkii aad rabtay inaad gaaraysid waxaad samaysay maxay si sax ah ayaad ku gaartay, oo se ugu gaartay efficiency aad ku gaartay. hadafkaaga efficiency aad ku gaartay oo dadkii si sax ah u isticmaashay, lacagtaada si sax ah u isticmaashay, qalabkaaga si sax ah u isticmaashay, kuma dheedheelin. managementiga this is the right manager, kaas managerka saxda ah. managementigu labadan unbuu xoogga saaraa asaga. ko efficiency use waa bilowga waa indis dhamaadkan effectiveness yani efficiency resourcigaaga si fiican u isticmaasho. low waste waa wax badan ma luminin, wax badan oo resource ah kaama lumin. يعني هدفك جالس الصحة وقارت وضدي صحة ومرت هذا إندواي هدفك مركز جورم الأوجا هذا هدفك إنك جارش كذا مركز ما تدري هوش مركز ما ترى هذا الشيء أنا أقول لك موضع وهدفك efficiency use مركز نيك مانجر كصحة وحبي نيك واستعماله دتكيس يو لعكتيس الصحة أسوي له هدفك سجارية تاس قلبي وهستا إن شاء الله عسى كوشي بدنا ما أنت تريني كينو ما أنت هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.